على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu maanta bilaabaynaa fatxu maka ama ghaswadii ama dagaalkii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku furtay magaalada maka loo yaqaano saynu soo sheegnay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la galay heshiis nimanka quraysh ah oo sheegayay muddo 10 sanadooda inuu dagaalku joogsado waxa kaloo quraysh heshiisyada lala galay ka mid ahaa in qolo walba oo qabaa'ilka kale carbeeda cidii taraf ama kooxaha ka mid ah heshiiskaasi la gasha inuu u soconayo waxaynu kala soo tilmaamnay in nimanka bani bakar la yiraahdo iyo nimanka khuzaaca la yiraahdo laba qabiilo ishayay ahaa inay heshiiska ka galeen labada dhinac kale qolana nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay la gashay khuzaaca qolana ay raacday quraysh oo quraysh la gashay leen halkan waxa dhacay markaas oo ghaswadan sababteedu waxay ahayd bay yiraahdaan culimada taariikhdu sida ibn kathir عن طريق ابن إسحاق وكسر ورنيه ولبا سند لليه وحسن لذاته إن وحال قلت الماما إن نمك الله يراهضو قريش أي بريي عهدي يرر بنو بكر مركل اسكدره سببتنا وحي هيد بالغت الماما بني بكر iyo khuzaaca istilay horta waxa ka dhaxayn jiray taaraad horo qabalihi yani laba qabiilo dagaal badan hore u soo dhaxmareen ayay ahaayeen oo aanooyin hore ay jiraan dabeetana nimankii reer bani bakar ba maalma kamida waxay yiraahdeen wallahi nimankii khuzaaca waa cidlaynu ka helayna aan weerar ku qaadno goor habeenimo abay weerar ku soo qaadeen baa la yiraahdaa oo ceel la yiraahdo al-watiir oo ay nimankani ka cabayaan lagu weeraray ilaa ay laga soo saaray meeshii ay deganaayeen ama ceelkii laga soo bixiyay oo la soo eriyaday oo maka la soo galiyay waxa la yiraahdaa qurayshi rag iyo hub iyo fardamo way ku taageertay qabiilkii reer banu bakar hooste ka siiyeen baa la yiraahdaa hub badan iyo rag iyo waxaasi oo dhan walidalik ayaa waxa dhacay qadiyadaasi markay dhacday ee khuzaaca waxay soo qabteen nabiga calayhi salaatu wasalaam nin bay soo direen Amr ibn Salim al-Khuzaa'i nin la yiraahdo ayaa Madiina loo soo diray ninkaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi waxay culimada taariikh sheegaan gabay buu ku hor bilaabay nabiga markaasi uu leeyahay ya rabbi inni naashidun muhammada hilfana wa hilfa abihi al-atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma ta'aslamna wa lam nanzi' yada gabay buu tirinaya uu leeyahay ilaahayow waxaan maanta yaani munaashada ku sameeynaya wax ka codsanaya Muhammad waxaan kaga codsanaya heshiiskii annaga iyo isaga aabihiiba noo dhaxeeyay oo waataynu reer banu hashim iyo marka horeba heshiis ka sii dhaxeeya jira khuzaaca idinku waxa ahaydeen buulay wuldan caruur ba ahaydeen wa kunna waalidaana qoladaydan dhashay baan nahay oo waxa la yiraahdaa khuzaaca islaan aba dhashay baa la yiraahdaa ummu abdi munaf ahayd baa la yiraahdaa yani islaan khuzaacada oo qabiilka ka dhalatay ayuu qabi jiray qusay gabay buu soo tiriyay markaas uu leeyahay sidii baan wali heshiiskii ugu jiraa oo waliba inta islaamnimana noo dheerto aanu islaamnay buu leeyahay oo wax kale oo haba yaraatee dhibi ma dhicin waxa la yiraahdaa gabaygan markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hortiriyay gabaygu waa gabaygu kaga waramayo in la weeraray in dib loo geystay in heshiiskii ay qolada kale buriyeen inay xilfi wadaag ahaayeen inuu doonayo in loo gargaaro gabaygu nooca u tirinaya ninkani weeyaan ninkani gabaygiisii markuu dhameeyay baa la yiraahdaa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri baa la yiri nusirt ya Amr ibn Salim lagu gargaar buu ku yiri baa la yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam Amr ibn Salim ibn Isxaaqna wuxuu sheegay nimanka sidii loo laayay in meeshoodii oo dhan inta laga soo saaray xaramka la soo galay oo xataa xaramka lagu la dagaalamay inkastoo biduni sanad oo qisada qaybtan daba ku aroorinayo waaqadi oo naf badan ku lahayn xagga riwaayada wuxuu sheegay 20 in laga dilay nimankaasi Musa ibn Uqba oo isna kamid ah rijaalu taariikhda magaazigi islaamiga rag qora wuxuu leeyahay zucama quraysh bay ahaayeen buu leeyahay ragii taageerayay
oo Safwan ibn Umayya iyo Shayba ibn Uthman iyo Suhayl ibn Amr iyo raggaasa taageerada soo siiyay waxaanay ku taageereen buu leeyahay hub iyo adoomo la dagaal gala ayuu isna sheegay Mus'ab ibn Uqbana biduuni sanad buu ku soo arorinaya ala kulli hal sanadka xasankee hore uu wuxuu sheegayaa inuu ninkaasi nabiga ka dalbaday gargaar isagoo sheegaya dhibtaasi inay ku dhacday dabeetana uu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam waa lagu gargaaraya waxaana meesha ka cad quraysh dhacdadan ay samaysay inuu yahay burin ay burisay mucaahadadii iyaga iyo nabiga heshiiskii u dhaxeeyay oo xadgudub ay ku xadgudbeen nabigu kaleey salaatu wasalaam dad xilfi wadaag la lahaa riwaayaadka qaarkood oo ibn Hajar uu soo arorinayo uu leeyahay waa mursal isnaadkiisu saxiix ilaa iyo Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far oo loo nisbaynayo irsaalka waxa uu ku tilmaamayaa uu leeyahay mursalka sanadka saxiixa wata waxay riwaayaadka qaarkood sheegayaan baa lagu tilmaamayaa quraysh xataa inuu nabigu kaleey salaatu wasalaam cid u soo diray uu kala dooransiinayo nimanka ay laayeen diyadoodii inay bixinayaan iyo inay bani bakr xilfigoodii inay bari ka noqonayaan iyo inay dagaal doortaan yani saddex shay la soo kala dooransiinayo inay diyadii bixiyaan inay nimanka ka baxayaan oo bani bakr iyo dadka kale la isu deynayo ay xilfigaasi saak kaga baxayaan iyo inay dagaal doortaan in la soo dooransiiyo waxa la yiraahdaa say riwaayadkaasi sheegayaan waxay dooratay quraysh qitaalka ama dagaalka laakiin hadana muddo markay joogtay baa la yiraahdaa waa ka warwareegeen oo waxay yiraahdeen wallahi waa arrin qaldan oo xataa waxa la sheegay in Abu Sufyaan ay u direen inuu bal dhexdhexaadin sameeyo Abu Sufyaan inay magaalada Madiina u soo direen oo Madiina yimi oo isku dayay ahdigii inuu dib u soo cusboonaysiiyo oo mucaahadadii mar labaad la sameeyo laakiin mucaahadada iyo ku dayga dambe Abu Sufyaan ciidina kama dhageysanin warbuu sheegay sida culimada taariikh warinayaan laakiin ciidina kama hoos qaadin sidii Abu Sufyaan iskaga soo noqday nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu faray ciidankiisii markaasi in dagaal loo diyaar garoobo waxay culimada taariikh sheegayaan sida xadiidka ibn Isxaaq oo soo arorinaya sanadka saxiixa umanu sheegin meeshuu nabigu u duuli doono laakiin ciidanku had diyaar garoobo baa la yiraahdaa waa la soconayaa waxaanu rabay baa la yiraahdaa nabigu kaleey salaatu wasalaam inuu duulo iyadoo aanay quraysh ka warhelin ilaa iyaga buriyay heshiiskii war la'aan iyadoo quraysh ku sugan tahay inuu duulimaadkan qaado waliba wuxuu u yeedhay nabigu kaleey salaatu wasalaam qabaa'ilkii agagaarkiisa joogay ayay ku tilmaamaan sida ahlu taariikhdu ay soo warinayaan inkastoo xadiis badan oo baabka ku saabsan aan sanadkeedu xoog badnayn waxa la yiraahdaa waxa ka qayb galay ama bila sanad bay iska yihiin qaar badani aslam iyo ghifaar iyo muzayna iyo juhayna asja sulaym qabaa'ilkaas oo dhan cid baa ka soo gashay baa la yiraahdaa qabaa'ilka qaarna Madiina intii uu joogay bay soo gaadheen baa la yiraahdaa qaarna tariiqa ayay ku soo gaadheen ibn Sa'd tabaqaadkiisa wuxuu ku sheegayaa xadiisan sanad wadanin inuu ciidanku gaadhay ilaa 10,000 oo askari 10,000 ciidan gaadhaya waxa la tilmaamay ibn Isxaaq sanad xasan lidaati isagu wuxuu ku sheegayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam inay soo raaceen ansaartii iyo muhaajiriintu aan cid ka hadhin iyaga yani inay aad u badnaayeen marxalada tan waxaad ka garan kartaa ciidamada tani siday u soo baxeen ciidamadani siday u soo urureen waxa kaaga filan in la yiraahdo 10,000 oo askari baa soo dagaal galay iyadoo inuu ogeyn dagaaladii hore uu nabigu galay kaleey salaatu wasalaam ciidanku wadan jiray intuu leeka waxay tilmaamaysaa labadii sanadood ama laba sano ku dhawaadkii sanadii waxoogaa buu ahaayeen nabadgelyadu jirtay sidoo islaamku u faafay iyo waqtiga nabadgelyadu jirto inuu islaamku ugu faafis badan yahay oo dadku ay si fiican qof aqli loo diintan loo sharxay inaanu jireenin ilaa inuu soo galayo mooyaane nabigu kaleey salaatu wasalaam saasu damcay baa la yiri inuu ku soo baxo dhexda markii la soo socdo ayaa waxa dhacday ninkii la oran jiray Haatib ibn Abi Balta'a Haatib waa saxaabi badariya ragi badar ka qayb galay buu ka mid yahay ayaa waraaq qoray waraaqdaasi quraysh buu ugu warramaya in nabigu ku soo socdo oo lagu soo duulayo dabeetana wuxuu u dhiibay gabadh islaan buu yiri qaad
oo waraaqda nimankii quraysheed u geey oo warka hal la gaarsiiyo ilaahay baa u soo waxyooday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo u sheegay warkiisii in gabadh loo dhiibay dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray baa la yidhaahdaa sida xadiidka saxiixi uu tilmaamayo dhowr nin ama 3 nin saxiixankay qisadu ku sugantahay 3 nin buu diray nabigu 3 nin waxaa lagu tilmaamaa cali ibn abi aalib zubayr ibn al-awaam iyo miqdaad ibn al-aswad al-kandi ama miqdaad ibn amr al-kandi 3daasi saxaabi ayuu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi fardihiina ka haysto ka daba taga meesha khaakh la yidhaahda buu nabigu yidhi markaa maraysaan islaam baa ku gaari doontaana islaantaa qabta qofkaa dumara qabta oo waraaqday sida ka soo qaado 3dii saxaabe fardoolayda waa soo yaaceen markay rawdatu khaakh marayeen waa meel 12 mayl meelaha u jirta madiine markay marayeen ayay islaantaasi qabteen islaantii waxaa la yidhi keena way warwareegto waxba ma sida iyo kan iyo hadal bay keentay way hadideen markaasi waxay yidhaahdeen 2 mid inaad soo saarto iyo inaanu marada kaa dhigna bay yidhaahdeen cali baa waxaa laga sheegaa inuu lahaa axlifu billaahi maa kadaba rasuulu llahi walaa kadabna ilaahay baan ku dheeranayaa inaanu nebi maxamedna been sheegin annana inaanan been sheegayn ee wallaahi latukhrijanna alkitaaba aw lanajuridannak ilaahay baan ku dhaartee kitaabka qoraalka soo saartee ama marada kaa dhigee buu yidhi falamaa ra'at iljadda minhu qaalat acrid waxaa la yidhi markay aragtay inaan maanta la iska cafinaynin oo iska cafis jirin awal wax islaayda muslimiintana mala ku taataaban maayaan laakiin cali wuxuu yidhi warkaasi ma jira ilaahay rasuulkiisu run buu sheegayey ama waraaqda ii dhiibtee ama marada kaa dhigayo baadhe ilaa iyo inta waraaqdii nebigu ii diray calayhi salaatu wasalaam soo helaya ayay tidhi war bal xaggaa iga yaro durka dabeetana intay xaggan u yaro baxday ayuunbay dacalladii timaha iyo guntimihii meelahan ay ku samsamaysatay intay furfurtay ayuunbay hal waraaqa ka soo saartay dabeetana way u dhiibtay waraaqdii bay soo qaadeen markaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u keeneen waraaqdii markii nebiga loo keenay ayaa waraaqda waxaa ku qoran min xaatib ibn abi baltacata ilaa quraysh xaatib baa loo yeedhay oo ka warramaya wuxuu nebigu ku yidhi yaa xaatib maa haada war xaatibow waxa kani waa maxay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam istifsaar buu weydiiyey maxaa kugu kalifay inaad waraaqdan qortaa awalan nebigu calayhi salaatu wasalaam xaatib ibn abi baltaca mid uu ka garanay inuu nin muslimo yahay oo waliba raggii caqiidada fiicnaa inuu yahay inuu ka mid yahay raggii dee ahlu beder inuu beder ka qayb galaa sharaftii ugu filan dabeetana waxaa la yidhi xaatibow maxaa arrinka kugu kalifay arrintani waa khiyaana cudma waa waxyaabaha yani jaajusnimada ugu waaweyn bay ka mid tahay waxaa la yidhi xaatibow arrintan maxaa kuu geeyey wuxuu ku yidhi xaatib yaa rasuula allahi laa tacjal calay ilaahay rasuulkiisiiyow haygu degdegi waad og tahay buu leeyahy anigu innii kuntu imra'an anigu waxaan ahay imra'an mulsaqan fii quraysh nin quraysh ku dhegan yacni nimaan quraysh ka tirsanayn oo dhalad quraysheed ahayn laakiin la degaanoo la degan iyagoo xilfi la wadaaga yaquul kuntu xaliifa anigu waxaan ahaa buu leeyahy quraysh kama tirsanayn ee xaliif baan u ahaa nin heshiis wadaag la leh walam akun min anfusiha iyagana kamaan tirsanayn buu leeyahy dee reer iyo 10 caruura iyo xoolo iyo waxna wayga xigaan muhaajiriinta kale ay nala socota buu leeyayna dee nin walba reerahoodii iyo qabiilkoodii baa meesha jiro caruurtiisii ama wixiisii cid u ilaalinaysa ama u dhowraysa ayaa maqan oo meesha jirta anigana ciidiba waxayga ii dhowrtaa igama maqna waxa qaraabo iyo ehel iyo ilaaliya caruurta iyo xoolaha maan lahayn marka waxaan sidhi nasabkii markuu i dhaafay quraysh yani abaal yar u gal oo adigana lagugu ilaaliyo reerkii caruurtii intii aan lagaa dhibin ee walam afcalhu irtidaadan can diini walaa ridan bilkufri bacda alislaam ee arrintan marnaba umaan samayn buu leeya ilaahay rasuulkiisiiyow riddo aan diintaydii ka ridoobay ama gaalnimo aan ka raalli noqday islaam dabadeed marnaba umaan samaynin yani wuxuu leeyahay waxaan islaamin yaroo nebi maxamedna aan waxba yeelaynin adigana caruurta kuu badbaadisa samee kumana tala jirin haba yaraatee
inaan diintayda ka baxo ama wax yeelo waxaa la yidhahdaa cumar baa markiiba soo boodo yidhi dacnii yaa rasuula allahi adrib cunuqa kan ilaahay rasuulkiisiiyo igu sii daan madaxa ka gooye fainahu qad khaana allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiiba kani waa khiyaameeye waqad naafaqa waa munaafaqoobay kaniyo igu sii daa buu yidhi waxaa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ama annahu qad sadaqakum run buu idiin sheegay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegaya xaatib oo ka dhab khiyaamo kale iyo diinka bax iyo warkaasi kama ahayne xaatib sidanunbay ula muuqatay waana run buu idiin sheegay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cumar laakiin wuxuu leeyahay kani waa jaajuuse hala dilo waa munaafiqe nebigu markaasi wuxuu ku yidhi innahu qad shahida badra ninkaan deedayaan dila buu leeyahay cumarow ninkani beder buu ka qayb galay maxaa ku ogeysiyey in ilaahay reer beder yidhi dembigiinaba waan dhaafay iska socda waxaad doontaan sameeya waana sababtay ku soo degtay baa la yidhaahdaa suuradatan laa tuqadim soomaalidu ay tiraa ilaa ilaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda waqad kafaruu bima yani aayaadkaasi ama suuraddaasi ilaa ay laga gaadhay faqad dalla sawaa sabiil ee suurat almumtaxin waa sababtay ku soo degtay baa la yidhaahdaa waa la leeyahay subxaana wa tacaala kuwa iimaanka laga helayow marnaba ha ka yeelina aniga cadowgay iyo idinka cadowgiinoo gaalo ah kuwo weliyoo qaraabiyo xidhiidh idinka dhaxeeyo oo kalgacala u muujisaan waryay dhicin baa la leeyahay subxaana wa tacaala qadiyadda tani waa jaajusnimo weyn laakiin meesha waxaa ka muuqata ninku hadduu acmaal aad u waaweyn oo fiican uu leeyahay in waxyaabaha qaarkood laga cafiyi karo maadaama uu saabiqa fi lislaam uu ku lahaa qofkuna mar kastaba xasanaadkiisa iyo wanaaggiisu inay dhinac yaaliin waxa kaloo ay qisadan culimmadu ka daliishadaan jaajuuska in la dili karo ayay culimmada badh u daliishadaan sida a'immatilmadaahib qayb ka mida a'immatilmadaahib qayb ka midina waxay u daliishadaan inaan la dilaynin laakiin waa masale khilaafiya labada qolobana xadiidkan ubay daliishadaan calaa kulli xaal waxaad moodaa inay meesha ka muuqato ra'yulimaam inuu meesha soconayo imaamku wuxuu ku xukumo maadaama uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkani bederi buu ahaana yani haddaanu bederi ahayn waxaa ka muuqata inuu ciqaabta heli lahaa waxaa kaloo meesha ka muuqata cumar markuu leeyahay aan dilo inuu jaajusku dil muto iyo qof la dilay inuu yahay aayaadkaana ilaahay wuxuu ku tilmaamay sababta ninkaasi ku soo degtay haba yaraatee inaan gaalo waru raadinta iyo waxaan dhuxdhuxdan iminka sanadahan dambe la wadaa inay gaalnimo kale ku dhowdahay waman yatawallahu minkum fainahu minhum baa ilaahay yidhi ninka iyaga weli ka dhigta xidhiidhka caynkaasi u sameeya iyagu ka mid yahay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxay u badan tahay asxaabu shimaalka haddaad noqoto asxaabu shamaal haddaad noqoto inaad asxaabu shimaalka noqon doonto kuwan xaggooda u janjeedha haddaad noqon doonto aakhirana kuwa bidixda kitaabka looga dhiibay inaad ku biiri doonto waa qadiya runtii u baahan qofka muslimkaa inay u caddahay gaalka mowqifka uu iska taagayo xaadiadatan xaaib waxay kaloo tilmaamaysaa mucjisada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay uga warramay ah in waraaqdan qofka dumara loo dhibay qarsoodiga ahayd inuu nebigu ka warramay waxay kaloo tilmaamaysaa jaasuuska in sirtiisa la muujiyo inayna shay jaa'isa tahay waxay kaloo tilmaamaysaa kabiirada dembiga weyn waa kabiiratani waa dunuubta waaweyn bay ka mid tahay inaanay kufri la mid ahayn kufri wax ka weyn isaga ma jiro laakiin inay kabiiro tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha sanadkii 8aad bishii ramadaan ayuu soo baxay dadka muslimiintiina iyagoo sooman ayaa ciidanku soo dareeray waxaa la tilmaama markuu nebigu soo gaadhay kudayd meel la yidhaahdo waa ilbiyoodoo maka ilaa 630 kiilo u jirta kilomitir maka u jirta 680 kilomitir meelahaasi markuu halkaa marayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu afuray markuu halkaa marayay ayuu afuray magaalada madiine waxaa la yidhaahdaa wuxuu madax uga soo dhigay abaruhm ninkii la odhan jiray abaruhm alkhifaari saxaabi la odhan jiray oo magaciisa la yidhaha kulthum ibnu xusayn alkhifaariy sa ibnu isxaaq sanad xasan lidaatihi uu ku soo aroorinayo xaafid ibnu xajarna uu tasxiixinaya ninkaas buu magaaladana madax uga soo dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii way soo socdeen ilaa iyo meesha la yidhaha maru dahraan ay soo gaadheen iyadoo aan qurayshi haba yaraatee
mari dhahraan waxay yimaadeen iyadoon quraysh ilaa hadda wax wara oo ay ka haysaanay jirin ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam soo gaaray waxa la yiraahdaa waqtiga oo halka nabigu soo gaaray markay 10 maalmood ramadaan tagsanayd buu nabigu madiina ka soo baxay baa la yiraahdaa calayhi salaatu wasalaam makana 19 buu soo galay sida mashhuurka ama caanka ah laakiin riwaayaad kala soo arooro qaar 13 sheegay qaar 16 sheegay qaar 17 sheegay qaar 18 sheegay laakiin waxa la isku wada waafaqsan yahay inay ahayd fatxu makka bil ramadaan sanadkii 8aad ee hijriyada dhexda markuu soo socday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la kulmay dad kamida zucamadii quraysheed ee waaweyneyd oo islaamay meesha la yiraahdo abwa markuu nabigu marayay waxa uu yimi ninkii la oran jiray Abu Sufyaan ibn al-Harith waa nimay nabiga calayhi salaatu wasalaam naaska walaalo ku ahaayeen Abu Sufyaan ibn al-Harith ninka la yiraahdo wuxuu kamid ahaa nimankii islaamka aadka u necba waliba nacayb quramaha wuxuu dheeraa nimankii gabayaaga ahaa ee nabiga iyo saxaabada iyo kooxda tan markaa gabayga ku soo maagi jiray ninka gabayaaga hadiyo goor haduu colaad qaato uu ka dhib badan yahay dadka kale oo de uu ka afbadan yahay oo waxan buu akhrinaya marka Abu Sufyaan ibn al-Harith ma Abu Sufyaan ibn Harb kan Abu Sufyaan ibn al-Harith oo nabiga ay naas nuugooda la ahaayeen wuxuu kamid ahaa nimankaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam soo dhibayay ragga iyaguna nabiga soo dhibi jiray calayhi salaatu wasalaam ee aadka u dhifta badnaa waxa kamid ahaa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira labadan ninba way islaameen waliba ninkan Abu Sufyaan la yiraahdo 20 sanadood in ka badan ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalka kula jiray laakiin wuu islaamay islaamnimadiisuna way fiicnaatay waxaanu kamid yahay qaswada dambe inuu tagi doono qaswatu Hunayn la yiraahdo markay muslimiin badan yaaci doonto raggii yaraay nabiga ku soo haray calayhi salaatu wasalaam la dagaal galay ayuu kamid ahaa baa la yiraahdaa de gabay dheer oo islaamnimadiisa ku saabsan baa jiro saxiix muslimka ku yaala Abdullah ibn Abi Umayyah ninkan la yiraahdo isagu Salama ayuu xagga aabba walaal kala yahay Salama waa min ummahatil mu'miniin waa haweenay uu nabigu qabay calayhi salaatu wasalaam haweenaydaas bay xagga aabba walaal ka ahaayeen waxa la yiraahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ugu yimi meel la yiraahdo bayna as-suqya wal araj ala tariiq al-madina isna waa islaamay islaamnimadiisuna way fiicnaatay makana waa ka dagaal galay طائف markii la weerarayay ama xisaarka طائف aynu ku tagi doonaa insha Allah taala waqtigii lagu hayay ayuu ku shahiidoobay sida ibn Abd al-Barr uu sheegayo juhfa meesha la yiraahdo oo raabiq meeshan hadda la yiraahdo u dhow markuu nabigu maray calayhi salaatu wasalaam juhfa ayaa isna waxa ka hor yimi al-Abbas ibn Abd al-Muttalib oo soo hijrooday isagu muhaajira nabiga adeerkii Abbas ibn Abd al-Muttalib la yiraahdo oo muslima oo soo hijrooday Abbas ibn Abd al-Muttalib waxa lagu tilmaamaa inuu islaamay qabla fath Khaybar sida uu oranayo ibn Kathir uu leeyahay sanad ala shart shaykhayn ku soo arooreen riwaayad iyagu daciif oo aan waxba xoog badnayn ba waxay sheegaan inuu islaamkiisu qabla badr buu ahaa qaar baaba la badr daaya qabla al-hijra buu ahaa laakiin kuwaasi ma cadda waxaanu kamid ahaa maxaabistii badr la qabtay fidyada laga qaatay waxa ka muuqata nabiga ha u gargaaro waayadii horeba isagoo gaala oo taan lahayn markuu nabigu soo hijroonayay isagoo aan islaam ahayn buu nabiga la socday isagoo hubinayay way reer banu haashimiinta ugu badan la Abu Lahab iyo midhadhka marka laga reebo mooyaane waxay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam Ciisa ala kulli xaal Abbas ibn Abd al-Muttalib isagoo muhaajira oo muslima ayuu meeshaasi nabiga kula kulmay meesha la yiraahdo Mari Dhahraan markuu nabigu maray calayhi salaatu wasalaam ayuu ciidankiisii joojiyay akhbaartii qurayshna ilaa hadda aanay wax akhbaar haynin waxa la yiraahdaa Abu Sufyaan ibn Harb iyo Hakim ibn Hazam iyo Budayl ibn Warqa al-Khuzaa'i saddexdan nin baa Maka ka soo baxay oo waraadisa bal raba sida wuxuu jiraan iyo waxinay soo helaan
culamada taariikhda qortaa waxay sheegaan saddexdan inuu waraadisa inuu la kulmay Cabbaas ibn Cabdilmuطalib oo isna ciidankii muslimiinta oo meesha jooga bay yidhaahdeen buu dameer yaroo cadow nebigu fuushanaa buu ka kaxaystay dabeetana xagga horuu maray Cabbaas iyo qoladan baa kulantay bay yidhaahdaan Cabbaas wuxuu raadcaynayay baa la yidhaahdaa bal inuu helo cid Quraysh ka mid ah oo uu la hadlo yidhaahdo war waa laydin hayaaye nebiga heshiis la galo dagaal iska daaya faa'iidi maysaane cid sulxi la gasha la kaalaya inta aanu maka idinku soo gelin Abu Sufyaan iyo labadiisii saaxiibe la socday Hakim ibn Hazam iyo Budayl ibn Warqa labadan nin la socday ayaa ciidankan muslimiinta iyo ciidamada iyo arrimahooda iska warwareysanayeen waxaanay u maleeyeen Budayl ibn Warqa waxa yiri war waxa soo ciidanay meeshan soo degay waxaan u maleynay reer Khuzaacaynayeen qabiilkii yaraa islaayeen taasi waxa ay tilmaamaysaa yani say muslimiintu u guuleysteen xataa ciidankan dabkiisa muuqdo inaan war laga hayno la garanaynin cid uu yahay Cabbaas baa markaa uu sheegay oo wuxuu yiri war meeshan waa ciidankii muslimiinta kuwa jooga waxay weydiiyeen maxay kula tahay wuxuu yiri Abu Sufyaan adiga ina keen magangaliya aan ku siiyo ciidanka muslimiinta u tag tii nabiga la hadal calayhi salaatu wasalaam oo heshiis la gal waxa la yiraahdaa Abu Sufyaan baa aqbalay Abu Sufyaan baa soo raacay ciidankii uu soo dhaxmariyay bay sheegaan waa aakhirkii aduu nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo Abu Sufyaan wada Abu Sufyaan markii nabiga loo keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadal dabacsan baa lagu hadlay islaamnimo loo soo bandhigay islaamnimadii uu ka taraduday Abu Sufyaan inuu islaamo waa ka yara warwareegay dabeetana Cabbaas baa waxa la yiri kaxeeyo caawana bal adiga khaymadaada ha u hoydo aroorta keen habeenkii halkii buu isaga hoyday subaxii labaad baa la keenay islaamnimadii baa loo sharxay Abu Sufyaan ibn Harb markaas uu islaamay waa qaa'idkii Quraysh ugu weynaa ee dagaalka ku soo jiray muddadaasi dhowr iyo 20 sanadood ama 21 sanadood cagaagaynaysa waxa kale oo Cabbaas soo tusay baa la yiri ciidankii muslimiinta tiradoodu inta leegday 10,000 askari iyo meel degan ayaa la soo tusay waliba waxa la yiraahdaa isticraad bay ciidamada muslimiintuna sameeyeen oo way bandhig ayaa lagu sameeyay Abu Sufyaan ciidamadii buu daawaday marka wuxuu ka yaabay waxaan oo ciidan oo muslimiintu wadato dabeetana wuxuu Abu Sufyaan gartay quwada tan quway Quraysh maanta u babacdhiga karaysa inaan ahayn kolba sidoo koox uu arkayay ayaa markii dambe waxa soo maray baa la yiraahdaa katiibatul muhaajiriin wal ansar qabiil bay u soo marayeen koox markii dambe waxa soo maray ansaartii iyo muhaajiriintii iyo nabiga la socda calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu yiri waa kuwa kuwanina markaas la yiri iyaguna waa muhaajiriintii iyo ansaartii iyo nabiga jir wallahi laqad asbaha mulku ibn akhika al-yawma 'azima abu yiri baa la yiri soo Cabbaas la hadlaya Cabbaas boqortooyadii inanka adeerka u ahayd walla weynaatay buu ku yiri baa la yiri waa imkum baanu yaray salaamay Cabbaas baa wuxuu ku yiri wayxaka ya Abu Sufyaan innaha nubuwa waa boqortooyo ma jirto meesha tani nabinimo taala buu ku yiri markaasuu yiri baa la yiri Abu Sufyaan marka fa na'amidan nabinimo hada waan aqbalaya maradaanay mulki ahayn ay nabinimo tahay waan aqbalaya Abu Sufyaan saasu ku socday isagoo Quraysh u socda oo uga waramaya waxa ku soo socda xadiis ibn Hajar ku tilmaamaya inuu saxiix yahay ayaa saasi sheegaya waxa la yiraahdaa markan isticraadka la sameeyay kolba ciidan baa soo hormaray waa kuwa nimka sala laha waa caynka rasuul ahaa la yiraahdaa waryaadeen anagii reer hebel maxana kala galay kolba qabiil Muzayna Juhayna qabaa'ilkii yaraba soo maray kolba anaga reer hebel maxana kala galay sidoo lahaabay katiibadan muhaajiriinta iyo ansaartii kooxdan soo martay waxa la yiraahdaa markii Sa'd ibn Ubaada oo sida calankii ansaarta ayaa markuu soo maray ayuu wuxuu ku yiri Abu Sufyaan اليوم يوم الملحمة بكل بالي اليوم تستحل الكعبة أبو سفيان وما أنت وما أنت ملحمة وما أنت دجالك ما أنت كعبة أنا حلال سنين أبو كل بالي سعد بن عبادة تبتنا رنتي أبو سفيان النبي قواش تكوذي عليه الصلاة والسلام والنبي يقول بالي أركاسي ما شرت كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة
ويوم تكسى فيه الكعبة حديث البخاري سو sheegayo may maanta waa maalin kacbada ilaahay u weyneeyay waana maalin kacbada mara la huwinayo gaala iyo qurunkeed laga saarayo ee ma aha maalin la banaysanayo waliba riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan in nabigu kaleey salaatu wasalaam Sa'd ibn Ubaada intuu calanka ka qaaday inankiisii u dhiibay laakiin riwaayadka qaar baa waxay tilmaamayaan inuu Sa'd nabigu soo noqday ya rasuulallah wiilkan yar waxaan ka baacayaa inuu gafiyo wax ku dhaco dabeetana Sa'd lagu celiyay على كل حال وديday uu nabigu weedha ah in maalin kacba la banaysanaya ay tahay waa ka diiday arsaday ayuu ciidankii qaab loo dagaal galiyo u dhigay quwaadii hogaamin lahaydna loo cayimay waxa laga dhigay ciidankii maymana iyo maysara iyo qalb ama bidix iyo midig iyo wadne qaabkaas baa loo dagaal galiyay ciidanka maymanada ah waxa loo dhibay Khalid ibn Walid ciidanka maysaradaana waxa ama bidixdana waxa loo dhibay Zubayr ibn al-Awwam Abu Ubayda ibn al-Jarrah isna waxa loo dhibay wixii lugleeya wixii aadinka ku socday waxa la yiraahdaa raayadii ama calankii uu nabigu sitay calayhi salaatu wasalaam maalinta tan wuxuu ahaa calan madow raayadu madow bay ahayd baa la yiraahdaa liwaaguna abyad waha ala kulli xaal waaqidi baa si kala sheegsheega arrimaha kan oo ciidanka iyo tiradiisa iyo intuu ahaa iyo qabiil waliba intuu ahaa iyo waaqidina nin xoog badan ma hasa daraadeed oo iskaga tagayna quraysh waxa la yidhi yana waxoogaa bay isku soo ururisay oo ay awbaashul qawm iyo inta soo ururisay dhaadana aan dagaalano hadii ay guulaysanana waa aragnay hadii kalena aan heshiis iska gallo nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu faray markaasi in quraysh lala soo dagaalamo dagaalkaasi uu soo socday baa la yiraahdaa xagga sare nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo ciidanku la socda ka soo galay ee xagga hoose magaalada Madiina waxa ka soo galay baa la yiraahdaa Khalid ibn Walid iyo ciidanku watay muqaawama ama cidi ka hortimi ma badnayn ma xoog badnayn waxa la yiraahdaa al-Khandama meesha la yiraahdaa waxooga oo waashi ay istaagtay kooxdana markiiba Khalid baa soo jiray iyo ciidanku watay waa soo laayeen dabeetana waxa lagu kulmayba ciidankii oo dhan la soo jabiyay wixiiba waxa lagu tilmaamaa fardoole yar oo aan badnayn ayay ahaayeen mushrikiinta ilaa 12 nin meelahaas laga dilay bay sheegaan culimada taariikh imaam al-Bukhari ilaa 2 nin oo muslimiinta ka shahiiday buu sheegaya inkastoo Muusa ibn Uqba uu leeyahay 24 bay ahaayeen mushrikiinta dadkii laga dilay waaqidi oo isagu naf badan lahayn wuxuu ku tilmaamay 28 qof in ahaayeen riwaayadkaas oo dhamay waxaad moodaa inay daciif isaga wada badan yihiin imaam at-Tabarani wuxuu sheegay 70 bay gaadhayeen laakiin markaynu waxa soo dhan isku soo wada daro waxa ka asali wuxuu yahay qurayshiin aanay ciidankii islaamiga ay soo taagin midmid yaro tuuriyo meelaha mooyaane in la soo jiiday dad waxoogaa in laga dilayna waxyaabaha tilmaamaya waxa kamid ah bay dhaahdaan Abu Sufyaan baa wuxuu yiri ubihat khadra'u Quraysh la Quraysh ba'da al-yawm maanta Quraysh waa la banaystay maanta kadib Quraysh jiri mayso waxa la yiraahdaa nabigu kaleey salaatu wasalaam maalinta wuxuu yiri man dakhala daar Abu Sufyaan fa huwa aamin war maanta ninkii guriga Abu Sufyaan galaa waa nabad galay ninkii albaabkiisa hoosta ka xidha waa nabad galay dabeetana saas bay dadkii uu intii dambe nabigu kaleey salaatu wasalaam magangaliyay siiyay waxoogaa yar hore meelaha si lagu soo dilay mooyaane nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu sida tan u galay waxa la yiraahdaa ansaartii waxay ka yar cabsatay inuu nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu ka qabsaday ammaanka nasiyaankan inuu iska dagi doono dabeetana arintaas bay nabiga uga cabsadeen inay dhacdo oo maalintu nabigu kaleey salaatu wasalaam al-mahya mahyaakum والممات مماتكم أنصاري أورورنا جريا نلال بحقنا نحبون نقول عليه الصلاة والسلام ما كتشوق ما يجريا نلال بق إذا كان كتر سنة يبون نقول عليه الصلاة والسلام وعلى إذا مالت النبي عليه الصلاة والسلام عيدا كيسوي حكسية أمر وحي لا دجالما إن أنا سيدين وحي لا دجالما إن لا دجالمان لكن وحكى له إن يمان إسكسية waxay riwaayaadka xadiisku sheegaan dhowr qof oo ibn Hajar isagu uu tiro badiyayba
dhowr qof oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaga yidhi kooxdaa haddaa heshaan hadday ku duuduuban yihiin kacbada maradeeda hadday haystaan dila buu nebigu ku yidhi kuwa iyaga waxaa ka mid ahaa baa la yidhaahdaa 4 nin iyo 2 gabdhood oo uu nebigu yidhi haddaa kuwa ku qabataan xataa kacbada iyagoo ku duuduuban maradeeda yayda ka baxsaneen 4 nin waxaa ka mid ah Ikrama ibn Abi Jahl ninkii la odhan jiray waxaa ka mid ah Cabdullah ibn Khatal waxaa ka mid ah Maqis ibn Sababa waxaa ka mid ah Cabdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh 4 nin waxaa lagu tilmaamaa ninka la yidhaahdo Cabdullah ibn Khatal oo waxa la sheegaa inuu markii hore soo islaamay dabeetana inuu muslimiinta qof ka mid ah intuu dilay inuu ridoobay oo dib u soo cararay nabiguna calayhi salaatu wasalaam kooxdaa wuxuu yidhi haddaa qabataan iyaga ha sii daynina kaa waa la dilay baa la yidhi isagoo kacbada ku duuduuban ninka la yidhaha Maqis ibn Sababana suuqa Makaa laga helo isna waa la dilay baa la yidhi laakiin labada nin kale Ikramata ibn Abi Jahl isagu ragii baxsaday Makaba ka cararay buu ka mid ahaa isaga iyo Cabdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ninka la yidhaahdo markii dambena nabiga calayhi salaatu wasalaam inta uu yimaadeen islaamay bay ka mid ahaayeen labada nin markii dambena iyagu way islaameen xaafid ibn Hajar isagu wuxuu soo ururiyay baa wixii dad uu nabigu yidhi dhiigoodu waa hadur wixii uu dad ku xukumay ama markan ha ahaato ama mar kale ha ahaatee waxaanu ku tilmaamaa ilaa 9 nin iyo 8 dumar ay dadkaasi gaadhayeen dadka kan iyagu waxay dambi gaar ay sii galeen oo dadka muslimiinta dhib gaar oo kale oo ay ku sii hayeen oo tiro badan maalintan wuxuu kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam faray baa la yidhaahdaa nimankii reer Khuzaaca reer Bani Bakar markii hore Maka la furtay ka arsadaa la yidhi oo idina dagaalka dhankiina ka wada laakiin waxa loo ogolaaday arsigoodu ilaa galabnimada inuu ahaado waxa dagaalka sii wadi kartaan ilaa casarka si haday gaadho dagaalka wayna joojisaan waayo nimankii hore qadarka laga galay weeyaan khiyaamada lagu sameeyay casarkii markay gaadhayna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhawaaqay inaan cidna dambe la dili karin khuzaaciyiintii niman ka mid ah ayaa nin dilay dabeetana ninkaas waxay ku tilmaamaan culimadu inuu nabigu xadiis imaamu Axmed uu warinayo sanad xasana inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam diyadiisii bixiyay waxaanu nabigu sheegay anna man qatala bacda dalika qatilan fa ahlu lqatiili bilkhiyaari bayna alqisaasi wadiya iminka laga bilaabo wixii ka dambeeya buu nabigu yidhi ninkaa cid dila dadka qofka laga dilay ayaa la dooransiinaya diya inay qaataan iyo in loo qisaaso yacni dagaal dambe ma jiro reer Maka intoodii ugu badnaydna maca inkastoo ay nabiga in badan oo hore soo dhibeen haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam waa iska wada cafiyey cafwi caama waxaa la yidhahdaa wuxuu maalintaa ilaaniyey war maxaa u malaynaysaan inaan idinku samayn doono Abu Cubayda fi lamwaal biisnaad xasan oo mursala uu ku soo aroorinayo ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خير أخ كريم ابن أخ كريم بيدا خير بانو فيلينا بيدا ولا الفيعن ولا الفيعن داري ساس بانو كان رجينا ويكو يدهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كي وحي اللي وقال سميني تبيتنا وحكو يدبالي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ما أنت دنبي كوركي إنما عناني كوركي إنما هانين ألا دنبي إنها دافع اسكتك يعني واعفيي غير مكان منكي أها وانا قرآنك وحسودك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين نبي قنوح قاطي صبرك بنك أبو قاطي سيدا حديثك إمام أحمد ورينا يشيغي ويقول نصبر ولا نعاقب والصبر إن أبو النبي عليه الصلاة والسلام عقابنا منه إن عفوك عامك ونبي تلمامي أما دمدافك عامك ونبي الشيغي وحكرت مي in naf iyo maal iyo sabo iyo xoolo boob iyo waxba toona inaan jirin saasaanu nabigu ku daayay calayhi salaatu wasalaam nimankii reer Maka ah nabigu calayhi salaatu wasalaam Maka waxa quba looga dhisay marka xujuun meesha la yiraahdo guri uu ku degana marka ma haynin sida Usama ibn Zayd laga sheegay inuu yiri nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور عقيل ميو نوغا تغيبا غوري وخوا ابي طالب يعني خولي و كدنتو دن علي iyo جعفر way islaameen labada nin oo gaala aha عقيل iyo ابو طالب nin loo dhan jiray ba ayaa dhaxlay odaygii maadaama uu gaal ahaa labada gaal uma dhaxlay iyana wixii ba way iibsadeen oo waxba lagu ma soo gaadhin
markaa quba yaroo halkaa looga dhigay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam degay. fatxu maka isagoo nebigu ciidanka intaa leeg wata magaalada maka qasab ku furtay, xoog ku soo galay, isla markaana aynu leenahay nebiga calayhi salaatu wasalaam maka oo ah ra'sul kufri iyo meeshii gaalada lagu hogaaminayay, haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo galayay isagoo isla waaweyn ama faraxsan ama boodboodaya ama la heesaya ama la gabyayo muu soo gelin, ee wuxuu soo galay baa la yidhahdaa isagoo daabaddu fuushanaa madaxa u gaadhsiinayaba inuu dhabarka ka saaro oo ilaahay u khushuucsan oo alle subxaana wa tacaala u mahad celinaya oo suurat alfatxi akhrinayo ku celcelinaya ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo galay baa la yidhahdaa. yani waxay muuqanaysaa qofka muslimka ahi marka uu nimcada iyo wanaagga helay inaanu bakbakiyo qaylo ka sii qaadine inuu ka sii qaado inuu ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigo oo alle nimcada ugu mahad celiyo. aladiina in makannaahum aqaamuu الصalaata waaatow الzakaat baa ilahay leeyahy, kuwa haddaan dhulka makansiiya baa ilaahay leeyahy, salaada ooga ee zakada bixiya ee ilaahay subxaana wa tacaala isu sii dhiiba, taas baa tamkiinku ku sii suurtooba. laakiin haddii markaa alla uu cadowgaaga kaa xoog badiyo kibir iyo buuqaad sii bilowdo iyo hees iyo digdig kale waxba faa'iidi maysid. nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii u soo socday isagoo sidaasi ah ayuu wuxuu soo galay kacbadii yimi, dabeetana wuu ku tawaafay. markuu tawaafkiisii dhammaystay waliba dadka xataa muu idhin inay qaasayar ama waxuu sitay buu sidaa ugu tilmaamayay rukniga xataa markuu marayo. saas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam si axaadiista saxiixa ay tilmaamaysa uu ku dhammaystay cibaadadiisaasi. wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam quraysh nin u dhashay inaan sabran loo dili doonin bacda alfatx ilaa iyo qiyaamaha si xadiiska saxiixu muslimka uu tilmaamayo. wuxuu kaloo nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in sanamadan yaalla xaramka laga daahiriyo. xaramka waxaa yaallay 360 sanam ay nimankan quraysh iyo waxaana ay caabudayeen tirada badan leh. dabeetana wuxuu yidhi 360 sanam xaramka yaallay laga guro oo laga gambiyo. waxaa la yidhahdaa nebigu qansayr uu sitay buu ku mudmudayay isagoo akhrinaya waqul jaa alxaqu wazahaqa albaailu ina albaaila kaana zahuuqa, isagoo nebigu akhrinaya oo leh xaqii baa yimi baailkiina waa zuulay, baailku awalba mid suulo oo tamar yar buu ahaaye. waxaa laga yaaba lahaa sanamada markii hore haddii laysku dayi lahaa quraysh haysatay in la dumiyo in dhiig badan ka dhici lahaa, laakiin maanta markuu uu xidhxidhay nebigu inuu magaalada furto markuu furtay wixiisana ma la caabuday waxa ku fillaatay qaansa in lagu ridrido inuu la yaro mudo oo qadaadka u dhacaba ku fillaatay. waxaa la yidhaahdaa kacbada waxaa kaloo ku sawiraa sawiro ay sawireen nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq, suwarkaas iyagoo aslaam tuuranaya, iyagoo wixii ay mushrikiintu tuurtuuri jireen iyagoo sawira tuuranaya ayay daakhil alkacba ku samaysnaayeen. kuwana nebigu wuxuu faray in sacfaraan la mariyo la baabi'iyo oo laga qariyo, isagoo nebigu le qaatalahum allah ma kaana ibraahimu yastaqsimu bilazlaam. nebi ibraahim ma ahayn mid ku faashada azlaam la isku dhufto. azlaamta waa qoryo yaroo la isku dhufto faal markaa uu ka soo baxo, ma ahayn mid faashada buu lahaa nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam. riwaayaadka qaarkood oo saxiixa iyana waxay sheegayaan xataa maryamo sawirkeeduna inuu ku yaalay. waxaasoo dhan zacfaraan buu mariyo uu tirtiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. mana gelin kacbada ilaa iyo baa la yidhahdaa markii suuradaha laga tirtiray ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana kacbada gudaheeda ayuu 2 ragcadood ku dhex tukaday. kadibna furihii kacbada wuxuu u dhiibay Uthman ibn Talha, nimankii marka horeba kacbada gacanta ku hayn jiray furayaasheeda oo xijaabadu reer bani shayba bay marka hore fil jaahiliya ahayd, halkii baanu u daayo kama qaadin. waxa muuqata inta badan caadada nebiga calayhi salaatu wasalaam hadday dadku soo islaamaan cid mas'uuliyad haysay in si ka wax kala dhacaan weeyna mas'uuliyadiisa lagama qaadaynin, isagoo markaa uu soo islaamo bas halkiisun baa loogu dhiibay. nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana istilaam buu ku sameeyey xajarul aswadki, dabeetana tawaaf buu sameeyey isagoo takbiiranayo tahliil samaynayo ilaahay u mahad celinayo subxaana wa tacaala, oo madaxiisana uu ku jiraba miqfarkii uu sitay, koofiyadii dagaalka uu sitay. tii markii dambe intuu iska bixiyey waayo nebigu muxram ma ahayn ayuu wuxuu xidhay baa la yidhaha cimaama sawdaa, waana masaa'ilkay u daliishadaan culamadu qofku haddaan maka inuu geli karo isagoo aan muxram ahayn. saas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga daahir yeelay kacbada wixii qudhun qadhaadh yaallay.
in kacbada waxaanoo sanama laga faydaa macnaheedu waxa weeyaan diintii wataniyada inay u dhammaatay. santarkii quraysheed iyo meeshay u soo xaj tagi jireen iyo dhulkay isu iman jireen sanamadeedii marka la soo daahiriyey ee laga soo ururiyey waxba kuma hadhin. riwaayaadka taariikhdu inkastoo sanad saxiix aanay ku soo aroorin waxa ay sheegaan markaa sanamadii meelaha kala yaalay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidamo u diray iyana soo daahiriya. maalan waxaa la tilmaamaa khaalid ibn waliid wuxuu diray nakhla oo sanamkii cuzal la odhan jiray ayaa halkaa ooli jiray kaa soo dumi baa la yidhi. camar ibnu caas wuxuu nebigu u diray baa la ydhaha sanam ay hudayl lahayd. saciid ibnu zayd alashhali wuxuu u diray baa la ydhaha manaat waa kuwan qur-aanku sheegaya afara'aytum ullaata waalcuza wamanaata ahaalitata alukhra waa sanamadaas baa la yidhahdaa baa raggaa loo kala diray oo mid walba la yidhi sanamkoodii soo baabi'i. kuwaana markiiba waa la soo baabi'iyey. waxaad moodaa jasiirada in laga dhammaynayo wixii sanamo iyo qurunqadhaadh yaalay oo dhan. fatxu maka sababteedaanay ku soo degtay aayaadkan qur-aan ilaahay leeyay idaa jaaa nasru llahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba. ilaahay leeyahay haddii alle nasrigiisu kuu yimaado iyo furashadiisu oo aad aragto dadkiioo diinta markaa koox kooxu soo gelaya ilaahay isaga tasbiixso oo dembi dhaaf ilaahay weydiiso. ilaahay baa dembi dhaaf badane. waayo carabi waxay eegaysay qurayshi waxay yeesho. qurayshi hadday islaamto ama laga xoog bato macnaheedu waxa weeyaan carab dee war damba kuma hadhin. maadaama carab laga xoog batay oo dad ka mid ay islaamtay macnaheedu waxa weeyaan waa dhacdo aad u weyn oo isbeddel ku samaysay jasiira alcarabiya oo dhan. waayo waxaan madaxa laga jaray waa ra'sul kufrigii, waa gaalada ciddii ugu waaweyneed waxaan madaxa laga jaray. carab oo dhammi waxay u soo xaj tegi jirtay ama iman jirtay meeshan qurayshi joogto. qurayshi markaa hadday islaamtay macnaheedu waxa weeyaan inaanay hadhin wax badan oo kaloo la tilmaamaa. qisaska ku saabsisan fatxu maka runtii waa iska soo koobaynaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr khudbadood buu akhriyey baa la yidhahdaa intii uu joogay maka. maalintii hore khudbad ayuu ka akhriyay baa la yidhaha calaa baabi alkacba. khudbadda hore wuxuu kaga warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka khata'a loo dilo shubho camdiga ah. nabarka waa loola kasay laakiin in kow lagaga siiyo looma dilin. khata'a shubho camdiga qofka lagu dilo iyo diyadiisa in 100 halaad oo 40 ay riman tahay oo caynkaas in laga qaadayo ayuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam. wuxuu kaloo maalintaasi dumiyey nebigu uu yidhi ma'aathir aljaahiliya iyo wasaaraataha wixii jaahiliyada lagu kala sarrayn jiray ama lagu kala qaadan jiray iyo wixii isdilkood waxaasoo dhan waxaanu soo reebay siqaayatulxaaji sadanatulbeyt ciddii haysatay in loo daayo. khudbaddii labaad ee uu nebigu jeediyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu iyadana ku buriyey wixii xilfiyo iyo heshiisyo qabaa'ilku ay isku taageerayaane dulmiye jiray oo dhan. wuxuun buu yidhi waxaa hadhaya wixii xilfiya ee ku saabsibnaa xaqa in loo gargaaro iyo riximka xidhiidhintiisa wixii ku saabsiisnaa. khudbaddii saddexaad ee uu nebigu jeediyey calayhi salaatu wasalaam iyana wuxuu kaga hadlay baa la yidhaahdaa maka iyo inay xaraman aaminan tahay, inaanay bannaanayn in ugaadheeda la dilo, geeddeeda in la jaro, qodaxdeeda in la gooyo, wixii ku dhex luma in la qaato, dagaal in lagu sameeyo inaanay bannaanayn. isagoo qura in ilaahay saacad u baneeyey wakhtigii fatxu maka. wuxuu khudbadda kale nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam hijra inaanay jirin laa hijra bacda alfatx. markii maka la furtay kadib hijro dambe dadku maka uu ka hijroodo madiine uu hijroodaa inaanay jirin, laakiin jihaadun wa niya wixii hadda ka dambeeya uu yahay in la jihaado iyo niyo fiican la yimaado. waayo dee makiba waxay noqotay maxay daaru islaam, maxaa looga hijroonayaa markan islaam baa ka talinaya. waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam muslimiinta bayca ama heshiisku la gelayey bacda alfatx wixii ka dambeeyey islaamnimo iyo iimaan iyo jihaad kulamu geli jirin baycada markii dambe hijro iyo inay soo hijroodaan. khudbaddii afraad wuxuu nebigu kaga hadlaa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam ana man qutila lahu qatiilun ninka laga dilo cid inuu xaq u leeyahay in la kala doornasiiyo, in uu qisaas qaadanayo qofka loo dilayo iyo inuu mag qaadanayo inuu isagu xaq u leeyahay. axkaamtaasoo dhammi waxay si fiican loo cadcadeeyo ay soo degtay wakhtigaasi lagu jiray fatxu maka.
waxyaabaha fatxu maka laga faa'iiday waxaa ka mid ah qofku safarka markuu ku jiro inay u bannaantahay inuu soomo iyo inuu afuro labadaba hadduu musaafir yahay oo safarku fii hayri macsiya uu yahay labaduba inay u bannaan tahay sidii aynu ku soo marray inuu markuu kudayd meesha la yidhahdo marayay uu nebigu calayhi salaatu wasalaam afuray waxyaabaha fatxu maka laga faa'iido waxaa ka mid ah markii uu nebigu magaalada furtay wuxuu yimi gurigii umuhani gabadhii la odhan jiray ilmaadeerka ahaayeen dabeetana 8 ragcadood oo fudfudud buu ku tukaday oo ay culimmada badh ku tilmaamayaan waa sunna mu'akkada waana waxa loo yaqaano salaati duha culimmada aan rumaysnayn salaatu duxuuna ay ku tilmaamayaan inay tahay salaadu shukran lillahi subhanahu wa ta'ala ama salaatu al-fath marka dul furatay alla uu ku gargaaro in sidaas iyo kale loo tukanayo waxay tilmaamaan fatxu maka waxyaabihii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam axkaamtu sheegay waxaa ka mid ah axaqu lmusalliin bilimaama dadka mu'miniinta qofka tukinaya imaamka u noqonaya inuu noqonayo akharuhum xifdan lilqur'aan qofku qur-aanka uga xifdi badan yahay uga fiican yahay inuu noqonayo dadka imaamkooda saxaabadiina dee waxaa la yaqaanaa ninka uu qur-aanka xifdi badan leh dee cilmiga kalena isaga u badnaa sideennan ma jirin in qur-aan quro inta la xifdiyo qofka aanu wax badan ba garanaynin nin qur-aan xifdisani dee caalim aan laga daba odhanin ayuu ahaa ayan kaan ninka qur-aanka xifdisana xifdigiisa ilaalinaya wuu ka imaamnimo fiican yahay ama uu kaga roon yahay imaamnimada cid kale oo dhan waxyaabaha qisadan laga faa'iido waxaa ka mid ah bay yidhaahdeen muddati salaati alqasr ama muddati qasri salaa salaada musaafirku inta uu koobayo oo waxaa la yidhahdaa dhowr iyo 10kii cashe uu nebigu joogay magaalada tan dhammaanteed salaada wuu soo koobayey waxaa ka mid ah qisada tan fatxu maka waxyaabaha axkaamtee laga faa'iiday inay bannaan tahay ammaanka ay bixiyaan haweenku waayo umuhani gabadhan la yidhaahdaa reerkan qabay 2 nin oo ka mid ah ayay magangeliyo siisay dabeetana cala isiri dil baa la yidhaahdaa magangeliyadiiba iyaduna siisay way u diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay wuxuu yidhi umuhani cidday siisay magangeliyo anana waa siinay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka culimmada muslimiintii waxay ku tageen ammaanulmar'a jaa'is inuu yahay haweenayda muslimadda iyaduna cidday magangeliyo siisaa in magangeliyadeedu ay soconayso axkaamta bay yidhahdaan laga faa'iiday axkaamtan aan sheegaya inta ugu badan le waxaad moodaa saxiixu muslim iyo bukhari inay ku wada qoran yihiin waxaa ka mid ah nikaaxulmutca in iyadana ma ay ahayd markii ugu dambaysay ee si dhab ah loo xaaraantinimeeyo aan ka noqnoqosho lahayn nikaaxulmutcuhu waa ninku inuu gabadh guursado muddo go'an inuu gabadh guursado yani gabadha guurkiiyo maya wixii kale waa la samaynayaa laakiin caqdiga wuxuu ku xidhan yahay maxay muddo bil baynu isqabaynaa wiig baan ku qabayaa maalin baan ku qabayaa waxay doonaysaa waa noqoto in muddo la isqabo dabeetana la kala tago markii hore fi shariica way bannaanayd dabeetana waa la nasakhay haddana mar kale la yaro banneeyey waa la nasakhay akhiiran culimmadu waxay leeyihiin fatxu maka ugu dambeeyey markii la yidhi waa mamnuuc culimmada muslimiintiina taa maanta waa isku wada waafaqsantay shiicada itnay cashariyada mooyaane eeraaniyiinta iyo kuwa shiicada itnay cashariyada ayaa iyagu wali aaminsan khuraafadaas shaygaasi mansuukha axkaamtu maalinta nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam la tilmaamo waxaa ka mid ah walad alfiraash الولد للفراش وللعاهر الحجر قصدي ابن وليد زمعة سعد بن أبي وقاص يا عبد بن زعمة لبدا نين الكلا يرادا waxa isku qabteen ilma isku qabsadeen ilmaha midna wuxuu leeyahay gabadhan aabahay baa qabay oo guurigeyga ku dhalato waa ka kalena wuxuu leeyahay waa fi zaman al-jahiliya niman walaalahayn baa gabadha ka dhalay odagana ha qabay laakiin nin kala farax meeyo ka dhalay dabeetana waxa la yidhi maya alwalad lilfirash gabadha ninkii qabuun baa ilmaha le mar haddaan isagu dafirin isaga yeelanaya masalada xukunkeedana maalintaasuu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah axkaamtu maalmaha nebigu caddeeyey nikaaxu lmushrik idaa aslamat zawjatuhu qabla inuu haddii ninka mushriga ah gabadhiisu ay ka soo hor islaamto oo intii ay ciddada ku jirto uu ninkiina soo islaamo inaan loo baahnayn caqdi cusub ee lagu celinayo gabadhii sidii ku dhacday safwaan ibnu umaya iyo ikramata ibn abi jahl ikrama ninkii la oran jiray wuu cararay oo kamida raggii uu nabigu yiri hal laayo hatta hadaa ugu timaadaan kacbada isagoo haysta laakiin gabadhiisa islaamtay oo ka daba tagtay oo isagoo yaman iyo meel sii socda tidhi war nabiga ilaahay dadku wuu cafiyay haddii cafis weydiisato oo tagto soo celisay dabeetana uu soo noqdo wuu islaamay cafiskiisina nabigu uu ka aqbalay isaga safwaan iyo gabadhiisi waa loo celiyay ikramana gabadhiisi sidii ayuu ku guursaday
waxa kamida ahkaamtu fatxu maka nabigu cadeeyay calayhi salaatu wasalaam baa lagu tilmaamaa qadiyada dardaaranka inaanu ninku dardaarmi karin xoolihiisa thuluth wax ka badan yani marka ay timaado waqtigaada aad u xanuusato aad rabto inaad dardaaranto xoolaha aad ka tegayso waxa ku banaan 3 meelood oo meel ahaan inaad dardaaranto dadkii aan lahayn dhaxalkaaga inaad u dardaaranto مثلا caruur agoonaad haysay dad kale aad mas'uulka aad qaraaba jirtay dad badan oo ku tirsan muslimiin kale oo baahan oo aad wax iska siin jirtay waxaad rabtaa inaad dardaaranto xoolahaaga inta ugu badan ee lagu ogoliyay inaad bixisaa waxa weeyaan maxay 3 meelood marka laga dhigo meel ahaan 2 meelood ugu yaraan waxa iska leh dadkii dhaxalka lahaa kuwana ilaahay baa u qaybiyay adigu u qaybin maysid ilaahay baa yiri yusiikum Allahu fi alayda kala dardaarmaya ilaahay caruurtiina saanan ugu qaybiyuna u qaybsanaato marka dhaxalka adigu waxaad xaq u leedahay inaad dardaaranto thuluth sida qisada Sa'd ibn Abi Waqqas ee xanuunkiisaasi ku saabsan ay tilmaamayso Sa'd baa ilaahay rasuulkiisiyo inaan quraan dhalo waa ka soo xoolina waan dardaarmaya dabeetana waa loo diiday akhiran waxa loo ogolaaday thuluth waxyaabaha ahkaamta uu bariga kan ama waqtigan nabigu cadeeyay waxa kamid ah nafaqada ahay ku saabsanayd odaygu haduu aad u gacan adag yahay oo islaantu ay markuu shaarka meelaha sursuro jaabka inta wax ka yara saarto carruurta iyo ay biilka ugu yara korkordhiso iyaduna inay iska banaan tahay hadii odaygu marka hore oday gacan adag yahay oo laakiin bil macruufun ay tahay nafaqadii carruurta iyo intan waxa ku saabsiisan waxa la yiraahdaa Abu Sufyaan baa yara gacanadka Hinda bint Utba ayaa ka soo cabatay dabeetana waxay tiri ilaahay rasuulkiisa hadaan de waxooga ka qaado odayga oo carruurta iyo biilka ku bixiyo maxaa jiro بالمعروف هذا سميسبه يدي مشكلة معها وحيابها ما وقت كانوا نبغوا عديه وحكم داينا ممنوع طي بيع الخمر يا ميتة يا صنامة يا وحى صردن وحيابها أحكامته وما المهن عديه نبغوا حكم دا عليه الصلاة والسلام تذكوا وين ياضع الربي إن أنا في عينينا ما وبنانين مدو مريان إن عرض اللي بدلين القرح بدنتهاي لكن حنا يكتن يوحي لمده in la marmariyo lagu bedelo sidoo Abi Qahafa Abi Bakar abihi maalintaas oo aad u timacad buu arko warnabigu kan madax wax Umar iyo ku yiri calayhi salaatu wasalaam Abi Qahafa madax aad u cadaaday waa Abi Bakar abihi waxyaabaha maalintan uu nabigu calayhi salaatu wasalaam jideeyay waxa iyana kamid ahaa qadiyadii shafaacada ku saabsanayd inaanay banaanayn had ilaahi xuduudiisa kamid ah gabadh baa waxaday makhzuumiyada yani gabadh Quraysh ka dhalatay baa waxaday dabeetana waxa la yiri xukunku waa qat'i al-yad in gacanta la jaro dabeetana waa la isku carcarro waxa la yiri war gabadha nabiga laga hadlo nabiga kaleey salaatu wasalaam yaa u tagaya baa la yiri wax la wadwaday baa cid kale kula dhacda la waayo waxa la yiri Usaama loo diro Usaama ibn Zayd ibn Haritha ninkii nabigu soo korsaday markii dambana ilaahay ku tilmaamay tabanigu inaanu banaanayn ilma sheegashadu aanad dhalin inaanay banaanayn Zayd ibn Haritha loo oran jiray Zaynab bint Jahsh qabi jiray Usaamana waa wiilkii uu dhalay oo Muayman uu ka dhalay yana gabadhii kale adoonta nabiga oo ahaan jirtay calayhi salaatu wasalaam ee dadkii soo korayna kamid ahay islaamii ugu khayrka badnaa muslimiintana ku jirtay Usaama marka waxa la yiraahdaa isagana nabigu uu jeclaa abihina uu jeclaa Zayd ibn Harithana waa teen soo maray qaswatu Mu'ta ciidankii saddexda kunan ahaa ninkii watay koowaad ee calanka sitay ku shahiidoobay buu ahaa Usaama oo inankiisiya oo nabigu aad u jeclaa ونن dhalinyaro aba la yiri Usaama uu nabiga u tago qadiyadan kala hadal Usaama marka nabiga uu yimo arintiisa kala hadal waa ka carooday baa nabigu la yiri isagoo leh dadkii idinka horeeyay waxay ku halaagsameen buu nabigu yiri hadii miskiinku waxadana xukumkay ku oogaan hadii kuwooda wanaagsaneeyo odayada ay waxadaana waxa la dhaadawooda hebel wala iska sii daaya ee ilaaha nafta Maxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay إن النبي محمد وفاطمي هداي حده قعنتان شرعي أبو نبي ويلينا نسيدينين إذا في الشريعة ما بنانا حكم كم ده أحكامته الحدود اللي جدية إن الشفاعة كبد طلبته يعني واحد بنان مركو هروة كسيدين كرتا توجي وحكا حدا يتقبطي قصب ما هي اللي ويلونا المحكمة دقيسة وادع فيه كرتا واتكسي دافي كرتا واتكتك أما هدي كيسكو محكمة دتقوه oo shariica ku ogan noqoto cidna loo jixin maayo markaas waa sida maxkamadda islaamiga uu hortagay waana wixii lagu helo hadii lagu waayana waa nasiibkii hadii lagu helana xukunka waa lagu fulinaya xadiidkaasina wuxuu cadeynaya mabda al-musaawat amama al-qanun in dadku uu ku siman yahay
oo aan dadka la kala soocsoocin oo runtiina axkaam aad u tiro badan baa lagu tilmaamaa in fatxu maka ay ka ratibantay laakiin waxa ugu weynuunaynu odhan karnaa waxa weeyaan in islaamnimadii ay guulaysatay oo qalcaddii kufriga ugu weynayd ee jaziira alcarab ku taallay inay gacanta islaamka soo gashay sanamadii iyo wixii la caabudi jiro oo dhanna in la tuuray maanta halkaasaynu ku joojinaynaa wallahu aclam